السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran channelka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa talaado 8 bisha afraad ee sanadka 2025. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago maamulka Trump oo doonaya lacag ganaaxa inay ku soo rogaan dadka soo galootiga ah ee maxkamadda ay ku amartay wadanka inay isaga baxaan laakiin diiday inay wadanka ay ka tagaan wadankoodii dib ugu laabtaan. Lacagahaasi maxay yihiin waan idin la wadaagayaa. sidoo kalena guul ayaa dhinaca maxkamadda sare maamulka Trump uga soo hoyatay maalnimadii shalay ahayd markii galinkii dambe maxkamadda sare ay Trump u ogolaatay in sharcigii Alien Enemy Act uu isticmaali karo isla markaana uu dadejin karo musaafurinta dadka soo galootiga sharci darada gaar ahaan Trump ku uu leeyahay waa gangis wadanka gudihiisa wali ku sugan. sidoo kalena ninkii maamulka Trump uu sida qaladka ah ku musaafuriyay garsoorana uu ku amray maamulka Trump in dib wadanka Mareykanka ugu soo celiyo oo maxkamadda sare sidoo kalena si ku meel gaar ah amarkaasi ay u hakisayna sidoo kale waan idin la wadaagaya. balse marka hore soo dhaw maamulka Trump ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay jiri doonaan lacag ganaax ah oo lagu ganaaxayo dadka soo galootiga sharci darada ah ee garsoore maxkamad uu ku amray in wadanka ay isaga baxaan ama wadanka laga masaafuriyo. waxa wararka soo baxaya ay sheegayaan in maamulka Trump uu doonayo in marka maxkamadda ay ku amarto qofka in sharcigii loo diiday wadankana ay tahay in uu isaga baxo ama laga masaafuriyo dadka qaar ayaa amarkaasi ka dhaga adeega isla markaana wadanka iska sii jooga. marka haddii aad ka dhaga adeegto waxaa lagu ganaaxayaa maalin kasto lacag gaaraysa $988. waa maalin kasta halkii maalin ayaa $988 lagu ganaaxaya. marka arrintaasi lacagtaasi waa ay badan kartaa inta maalmood oo aad joogto waxay kaaga bilaabanaysaa maalintii garsooraha uu kugu amray inaad wadanka isaga baxdo. marka waxaa laga yaabaa in lacaga fara badan ay kuu gaarto. xitaa maamulka Trump waxa uu leeyahay qofkaasi haddii hanti uu ku leeyahay Mareykanka dad ayaa laga yaabaa inay shaqaysteen intaas ay joogeen ama lacaga bangi ugu jiraan. marka hantidaasna dowladda ayaa kala wareegaysa. haddii marka aad amarkaasi ka dhaga adeegto inaad wadanka isaga baxda lacagtaasi ayaa maalin kasta wax laga yaabaa inay 1 milyan kugu gaarto inay intaasi ka badato. marka retroactive ayay noqonaysaa ilaa muddo 5 sano ah ayaa laga yaabaa lacagtaasi bix in lagu yiraahdo. marka arrintaasi waxa ay maamulka Trump uu adeegsanayaa sharci markiisii ugu horeysay la dhaqan galiyay sanadkii 1996 waxaana Trump markii ugu horeysay uu isticmaalay xilligii hore wadanka madaxweyne ka ahaa sanadkii 2018 ayuu isticmaalay Trump. marka wasaaradda amniga gudaha ayaa arrintaasi wax laga weydiiyay waxaana wasaaradda amniga gudaha ay tiri haddii wadanka Mareykanka aad sharci darro ku joogto waa inaad isticmaashaa abka markii hore la oran jiray CBP1 laakiin hadda dowladdu ay u bixisay CBP Home oo qofku intuu informationkiisa geliyo isagu self report oo isku sameynayo oo uu wadanka isaga masaafurinayo. marka qofku waa in uu abkaasi isticmaalaa wadankana uu hadda isaga baxaa ayaa wasaaradda amniga gudaha ay ku jawaabtay markii arrintaasi wax laga weydiiyay. marka waxa wasaaradda amniga gudaha intaasi ku dartay haddii qofku uu diido inuu wadanka isaga baxo maadaama garsoore maxkamadeed uu ku amray caqabado ayuu la kulmayaa ay ka mid tahay in maalin kasta la ganaaxo lacagtaasi $988 iyo sidoo kale $98. sidoo kalena waxa uu wajihi karaa caqabado kale oo ay ka mid tahay haddii uu muddo ka badan uu sii joogo maalintii amarkaasi lagu siiyay inuu wadanka isaga baxo oo amarkii ugu dambeeyay uu garsooruhu siiyay waxa uu mutaysan karaa in ganaaxaasi iyo in la xiro oo wadanka laga masaafuriyo. marka amarkaasi waxa uu soo baxay 31 bishii dhamaatay. sidaa darteed waxa arinta dhinaca hantida qofku haddii uu hanti leeyahay lagala wareegayo waxa arintaasi fulin doona ciidamada xuduudaha ilaaliya ee CBP-da iyadoo sidoo kalena hantidiisa la iibin doono haddii hanti kale uu leeyahayna sidoo kalena dowladdu ay gabi ahaanba ay kala wareegayso. marka dadka wadanka garsoore uu ku amray inay isaga baxaan waa ilaa 1.4 milyan oo qof oo garsoore maxkamadeed amar uu ku siiyay inaan sharci laga siinaynin wadanka oo ay tahay inay wadanka isaga baxaan. marka sidaas darteed ayaa waxa la leeyahay marka hadda ganaaxaasi ayaa maamulka Trump uu soo rogayaa. waxaana Trump xilligii hore wadanka madaxweyne ka ahaa la leeyahay $60,000 ayaa 4 qof uu ka qaaday walow Biden markii uu xilka la wareegay sanadkii 2021 ganaaxadaasina uu joojiyay isla markaana siyaasadihii kale ee la xiriirayna gabi ahaanba
uu ka laabtay, laakiin Trump ayaa haddana mar kale dib u soo celinaya. Laakiin dadka ay qusaynayso waa dadka lagu amray wadanka inay isaga baxaan oo garsoore maxkamadeed uu amray in wadanka laga masaafurin karo amaba ay isaga baxaan, ma ahan dadka kale oo iyagu sida sharci darrada ah wadan ku jooga oo weli ballan maxkamadeed sugaya ama sidoo kalena kiiskooda weli uu socdo. waa tahay dhinaca kale maxkamadda sare ayaa la isla gaaray kiiskii sharcigii Trump uu isticmaalay ee Alien Enemy Act oo qarnigii 18aad la dhaqangeliyay oo 1798. waa tii garsoore maxkamadeed oo la yiraahdo James Boasberg uu sharcigaasi joojiyay oo yiri dadkaasi la geeyay El Salvador xabsiga la geeyay waa xabsi halis ah, jirdil iyo dhibaatooyin kale ayayna kala kulmi karaan. marka maxkamadda sare ayaa Trump u gudbiyay oo leeyahay waa in la ka qaadaa amarkaasi oo aan bilowno musaafurinta inagoo sharcigaasi adeegsanayna. haddaba garsooreyaasha maxkamadda shalay waxay isku raaceen 5 kamid ah waa 9, 4 waa ay diiday, 5na waxay yiraahdeen Trump amarkaasi waad sii wadi kartaa, dadkana waad masaafurin kartaa, iyadoo sidoo kale aqalka cadna arrintaasi ay soo dhaweeyeen. madaxweyne Trump waxa uu ku tilmaamay in ay tahay maalin weyn oo cadaaladda Mareykanka ay shaqaysay. sidoo kalena waxaa si aad ah u soo dhaweeyay wasiirka amniga gudaha Kristi Noem iyo wasiirka cadaaladda Pam Bondi iyo madaxweyne ku-xigeenka JD Vance, waxayna yiraahdeen waa guul u soo hoyatay isku xukunka dhinaca sharciga ah ee Mareykanka. sidoo kale Kristi Noem ayaa waxa ay tiri maxkamadda sare mar kale waxay cadeysay in madaxweyne Trump uu sax yahay, iyadoo sidoo kalena intaasi ku dartay hadda isaga bax Mareykanka haddii aad sharci darro ku joogto, haddii kale waan ku soo xireynaa, xabsi ayaan ku gelinaynaa, kadibna waan ku masaafurinaynaa. arrintaasi ayaa sidoo kale ay tiri. marka Trump waxa uu yiri madaxweynaha ayaa mar kale loo ogolaaday in uu xuduudaha Mareykanka uu leeyahay adkeeyo, sidaas darteedna uu difaaco shacabka Mareykanka iyo qoysaska Mareykanka. arrintaasina Trump si weyn ayuu u soo dhaweeyay. marka Trump bishii hore bartamaheedii waa dad gaaraya 261 qof oo 100 qof oo Venezuela ay ku jiraan waa kii xabsiga geeyay El Salvador ku yaala. isla markaana arrintaasi darteed ayaa waxay ka dhalatay in la yiri dadkaasi wadadii sharciga ahayd lama marin oo waa la soo qabtay, waa la xiray, kadibna horey ayaa laga masaafuriyay. marka Trump waxa uu leeyahay waa kooxihii gaangiska ee dhibaatada ka waday wadanka, gaar ahaan kuwa Venezuela ka yimid ee Frente de Aragua ama TDA loo soo gaabiyo iyo weliba MS-13. sidaas darteed xaq ayaan u leeyahay in dadka ammaanka qaranka iyo ammaanka shacabka Mareykanka khatarta ku ah inaan wadanka gabi ahaanba aan ka saaro. marka maxkamadda sare ayaa haddana mar kale arrintaasi u ogolaatay. sidoo kale jimcihii waxaan ogeyn in garsoore maxkamad oo Maryland oo federaal oo la yiraahdo Paula Shinis ay maamulka Trump ku amartay in ninkii sida qaladka ay ku masaafuriyeen oo wadanka El Salvador u dhashay oo magaciisu ahaa Kilmar Abrego Garcia in wadanka Mareykanka dib loogu soo celiyo xalay saqdi dhaxayeed 11:59 PM ka hor in Mareykanka lagu soo celiyo. marka maxkamadda sare ayaa Trump arrintaasi maamulkiisa ay u gudbiyeen. maxkamadda sarena waxay u ogolaatay in si ku meel gaar ah amarkaasi loo joojinayo. marka maamulka Trump waxa uu leeyahay ninkaas waa run qalad ayaan ku masaafurinay, laakiin hadda Mareykanka dib uguma soo celin karno. xaaskiisa ayaa waxa ay leedahay qareenadiisu dowladdu lacag ay ku siinaysaa maamulkaasi wadanka El Salvador in maxaabiistaasi ay hayaan. marka waa ay dhihi karaan qofkaasi si qalad ah ayaan ku soo masaafurinay, waa ina soo celin karaan, laakiin maamulka Trump ma doonayaan inay soo celiyaan. ninkaasi isagoo sanadkii 2011 ayuu wadanka soo galay isagoo da'yar, waa uu ku guursaday, ilmo ayuu ku dhalay. maamulka Trumpna waxay leeyihiin kooxaha gaangiska ee wadanka El Salvador ka jira ee MS-13 la yiraahdo ayuu ka tirsanaa, waxaana horey garsoore maxkamadeed uu amar ugu bixiyay ninkaasi maadaama kooxaha gaangiska ee wadankiisa ka jira isagoo da'yar uu ka soo cararay inaan wadankiisa dib loogu celin karin. marka arrintan xaalkeedu weli waa complicated, waa ay adag tahay. garsoore ayaa amar ku bixiyay, laakiin hadda maxkamaddii sare ayaa amarkaasi burisay oo si ku meel gaar ah u joojisay. wayna arki doonaa halka haddana arrintaasi ay aadi doonto, laakiin xaaskiisa iyo qareenadiisa waxay leeyihiin xaq ayuu u leeyahay in Mareykanka dib loogu soo celiyo, wax dembiyana Mareykanka ma uusan ka gelin. sidoo kalena horey ayaa garsoore waxa uu amray ninkaas inaan wadankiisa aan dib loogu celin karin. waxyaabaha kale ee kasoo kordhana sidoo kale wayna arki doonaa. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.